kulanti wacan oo wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad daafaha dunida ka joogtaan ku soo dhawaada warbixin xiiso badan oo ka hadlaysa heshiiska Itoobiya iyo Somaliland. warbixintaasi oo u diyaariyay qoraaga Cabdi Xasan Diridhaba. aan ku bilaabo aboobihii sanadkii 2008 ayaa waxa magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka ka soo kicitimay wafdi iskugu jira saraakiil ciidamada Mareykanka ka tirsan madaxda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ka socda iyo kooxo u qaabilsan Mareykanka dhinaca istiraatiijiyadda. waxa ay kusoo horeeyeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya oo ay kula kulmeen ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Itoobiya Mala Zanaawi. maalin kadib waxa ay wafdigaasi ka soo degeen magaalada Hargeysa iyaga oo kulan la yeeshay madaxweynihii hore ee Somaliland Mudane Daahir Riyaale Kaahin. qorshuhu wuxuu ahaa in Mareykanku si dhab ah u daraaseeyo waqtiga qadiyadda Somaliland, heerka ay gaarsiisan tahay iyo in ay Somaliland leedahay haykal dowladnimo oo gaarsiisan in la siiyo aqoonsi caalami ah oo Mareykanku si dadban iyo si toos ahba u bixiyo. Mareykanku waqtiga waxa ay qaateen go'aan ah in Somaliland sharciyan iyo istiraatiiji ahaanba ku habboon tahay aqoonsi, laakiin ay sugaan bal inta dhinacii kale ee Soomaaliya cagaha isku taagayo si qaab sharci ah si loogu kala guro. ama aan nidhaahne siduu ku yimid arrinta in Itoobiya ay hesho saldhig military oo ciidankeega baddu isticmaalo. qalalaasaha baaxadda leh ee ka bilaabmay gacanka cadmeed dalalka waaweyn ee Mareykanku hogaaminayo waxa ay u baahnaayeen dowlad itaal military leh oo ay ku halayn karaan ammaanka gacanka cadmeed. dhibaatada hortaalay Mareykanka iyo xulafadiisu waxay ahayd may jirin dowlad awood military oo xooga leh oo marinka albaabka mandabka kala shaqaysa sidii loogu soo celin lahaa xasilooni. sida uu qoray maxadka daraasaadka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda ammaanka badda ee loo yaqaano Cato Institute, howlgalka Mareykanku horkacayo ee ilaalinta xeebaha badda cas sanadkii waxa uu ku kacaa ayuu yiri kharash gaaraya ilaa iyo $5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. ugu yaraan 20 shirkadood oo gaar loo leeyahay kana shaqeeya ammaanka gacanka cadmeed ayaa midkiiba sanadkii qaataa lacag ku dhow $500 milyan oo dollar ayna bixiyaan dalalka ku bahoobay ammaanka gacanka cadmeed. kharashkaasi ayaa la filayaa in uu 5 jeer la bilaabmo kadib markii ay Xuutiyiintu dalka Yemen ay weerar ku eekaysiiyeen maraakiibta gooshta marinka mandabka. Mareykanka iyo xulafadiisu waxa ay isku qanciyeen Itoobiya oo ka hesha marinka badda cas albaab military in ay u fudaydin karto dalalka reer galbeedka in ay si fudud u ilaaliyaan xeebaha marinka mandabka, maadaama oo Itoobiya ay tahay dalka ugu dhow Afrika ee xidhiidh 200 oo sanadood tirsanaya la leh dalka ama dalalka waaweyn ee Mareykanka iyo Ingiriiska. haddaba waa maxay baqdinta ah Itoobiya xoog ayay ku qabsanaysaa badda Somaliland? dooda noocaasi ah waa mid ka qaawan sharciyada, garashada iyo istiraatiijiyadaba. intaba jawaabta ugu fudud ee laga bixin karaya waxa ay tahay 33 sanadood ee ugu dambeeyay Itoobiya awood ayay u lahayd inay xeebta iyo bad kasta oo ku taala gayiga dhulkii Somali Republic la isku oran jiray ay qaybsato oo sheegto ama sheegataba. ama maxaa ka hortaagnaa ayay isweydiintu noqonaysaa. waxa ka hortaagnaa ayuu yiri qoraagu sharciga caalamiga ah ee kama ay hortaagnayn baqdin ay ka qabto Soomaalida halkaasi ku nool ama gayiga Soomaaliya ku noolba. Itoobiya waxa ay doonaysay ama ay rabtaaba waa saldhig military oo ay keento ugu yaraan 2,000 oo ciidamadeeda badda ah iyo ilaa iyo 6 markab, 100 doonyood, kuwaasi oo saldhig ay ku xidhaan uu u noqon doono saldhigaasi. kharashka saldhigaasi iyo kiradiisaba waxa bixin doona dalka Imaaraadka Carabta oo sida oo kale ballan qaaday mashruuc weyn oo lagu ballaarin doono dekedda Berbera, kuna bixi doonta lacag ku dhow $6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. mashruucaasi oo isugu jira khatareen oo isku xiri doona Berbera ilaa iyo Addis Ababa, dekedda hadda ay DP World dhistay oo lagu dari doono ilaa iyo 6 terminaal oo kale, iyo xayndaab weyn oo lagu kordhin doono haamaha shidaalka ee kaydka magaalada Berbera. haddaba
soomaaliya awood intee leeg ayay u leedahay in ay ka hor timaado ama hor istaagto heshiiskaasi. heshiiskan somalilan iyo etoobiya waxaa si qarsoodi ah looga shaqaynayay labadii sannadood ee ugu dambeeyey. cududa diblomaasiyadeed ee addis ababa waxa ay saartay xoog aad u weyn in ay ku qanciso ugu yaraan 80 dal oo adduunka ah heshiiskaasi iyo sharciyadiisaba. marka aan leeyahay ayuu yidhi qoraagu, sharciyadiisa waxa ku jira waa aqoonsiga somalilan. 3 bilood ka hor waxaa magaalada addis ababa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu kula yeeshay safiirada dalalka xubnaha ka ah midowda afrika. sida oo kale somalilan iyo etoobiya waxa ay diyaariyeen kooxo ka kooban ilaa iyo 50 xubnood oo khubro ku ah dhinaca sharciga caalamiga ah. marka muuqaalada iyo dhawaaqa hadda la arkayo ee 1 January dhagaheenu maqleen, indhaheenuna arkeen, waa shaacinta heshiis la soo bislay. soomaaliya oo kaashata Masar awood military ma qaadi karaan iyaga oo isku lamaan? jawaabta su-aashaasi iyada oo kooban waa maya. waayo soomaaliya weerar ay qaadadayo ciidanka ugu badan ee gudaha soomaaliya ku sugan waa etoobiyaan. waxa jooga gobolada Bay, Bakool, Hiiraan, Gado iyo shabeelooyinka ciidan etoobiyaan ah oo tiradoodu dhan tahay 22,000 oo askari. haddii ay bari ka baxaana ciidanka etoobiya dhulkaasi muddo 7 maalmood ah, al-shabaab waxa ay ku qabsan kartaa magaalada muqdisho. xuduuda ugu weyn ee al-shabaab muqdisho ka hortaagani waa ciidanka etoobiya, sida uu qoraagu ku xusay qoraalkiisa. dalka Masar iska dhaaf weerar uu qaado ee waxa ay dowlad ahaan hadda tahli kari leedahay in ay ciidankeeda iyo shaqaalaha dowladda mushaharkii siiso. GDP-ga dalka Masar wuxuu uu khasaaray 6.9% saddexdii sannadood ee la soo dhaafay. waxa ay iska bixin kari la yihiin deyntii ay ka qaateen IMF iyo World Bank. weerar ay Masar ku qaaday Ethiopia waxa uu u baahan yahay marka hore uu ogolaansho ka helo dalka Suudaan. marka labaad waxa ku baxaya ugu yaraan 10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Masar awood dhaqaale iyo mid istiraatiijiyadeed midna uma haysato in ay dagaal kula gasho Ethiopia heshiiska ay Somaliland la gashay. laakiin waxa ay samayn kartaa Masar in ay muujiso ama u muujiso Muqdisho taageero diblomaasiyadeed oo abaydan ah oo kaliya. haddaba aan iyana isweydiina adduunka kale siduu u arkaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia. su-aasha jawaabtaasi waxa marag kaaga filan oo marag u ah markii lagu dhawaaqay heshiiska 1 January. dowladda Soomaaliya waxa ay xidhiidh la samaysay ugu yaraan 66 dal oo ay ka codsatay dhammaantood in ay heshiiskaasi la dhaleeceeyaan. mana jiraan hal dal oo dhaleeceeyay heshiiskaasi ama ka hor yimid nuxurka heshiiskaasi. sidaa cakiskeeda waxa ay dowladuhu jawaab uga dhigeen codsigii Soomaaliya luuqad diblomaasiyadeed oo u turjuman. waxaanu ka qaban karnaa maleh arrintaasi. hagaag haddaba dowladda Soomaaliya aan isweydiino ma geyn kartaa maxkamad arrintaasi iyana? waa arrin ta ugu muhiimsan, waana arrinta ay 2 sannadood ee ugu dambeeyayba dhisayeen sharciyaqaanada dowladda Ethiopia iyo Somaliland ay wakiisheen. waana arrin ay Somaliland u miciyalisanaysay 33 sannadood ee la soo dhaafayba in qadiyadeedu ay isku bedesho dood sharci. madaxweynaha Soomaaliya waxa uu qoraal ahaan iyo af ahaanba ku qiray kuna aqbalay in 1960 bishii Juulaay 1 ay isku beereen 2 dal oo kala madax banaana oo la oran jiray Somaliland iyo Soomaaliya, noqdeenna dal midoobay oo loo bixiyay magaca ah Somali Republic. haddaad u fiirsato taariikhda adduunka, dhammaan dalalkii midoobay ee haddana kala baxay sida midnimadii dhex martay Senegal iyo Gambia, Suuriya, Masar, Beirut iyo Bolivia, dhammaantood waxa ay dalalkaasi ay kala saxeexdeen waxa loo yaqaano sharciga caalamiga ah Acting of Union 1707. balse Somaliland iyo Soomaaliya ma jiraan heshiis qoraal ah oo ay kala saxeexdeen una gudbiyeen qaramada midoobay. marka sharciga caalamiga ahi waxa uu ka doonayaa Soomaaliya in ay cadeeyaan heshiiska sharciga ah ee mideeyay 2 jamhuuriyadood ee isku beeray 60kii. wayna
ogtahay Soomaaliya haddii ay keeskan geyso maxkamad caalamiya oo ay ku guuldareysato intaasi ay si fudud oo dib yar u jihaynayso aqoonsi rasmi ah oo aan jid kale u baahnayn oo ay adduunyada ka hesho Somaliland aan mar kale haddaba isweydiina heshiiskani ma hirgeli karaa isaguna ilaa hadda ma jiro wax caqabad ah oo heshiiska Somaliland iyo Ethiopia hortaagan markaad ka timaado dhawaaqyada mikrofoonada la isku marinayo waxa Soomaaliya si hoose lagu sheegay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyayna in ay arintaasi farahaba ka qaado heshiiskani kaliya waxa uu fashilmi karaa marka dalalka arintani riixaya oo ay ugu horeyso dalka Mareykanku ay ka baxaan taageerada heshiiskani balse inta uu haysto dhabahaasi waa hirgalaya waliba waxa uu ku hirgalaya sida ugu dhaqsaha badan oo ku eg muddo 60 maalmood gudahooda la soco ayaanu ku leenahay qaybta saddexaad ee warbixintan oo aad u xiiso badan isla markaasina u diyaariyay soona qoray qoraaga caanka ah Maxamed Cabdi Xasan Diridhaba oo ay CSTV-na ka soo xigatay aniga oo Cabdirasaaqa ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe oo xiiso lana waxaan idinku dhaafi doonaa wabilaahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh